cusub hadda inay dhaqan gasho ilaahay idmo taargada waxaa lagu xiri doonaa baabuurta hadda dekada ka soo degto cusub kuwii hore u haystana waxaan u nadaaminay qofka hadduu yimaado oo raba taargada inuu iska bedelo waa loo bedelayaa haddii uu sidiisa ku wadanayana kolba systemka ku imaan doona oo waxaa laga yaabaa intay barnaamijka dekada ilaa baabuurtan cusub markay soo dhamaadaan ka bacdi inuu dhammaan qof walba qaadan doono laakiin cidaan maanta ku khasbayna ma jirto arrinta inaan bedelno arrinta nagu keentay waxay yahay bulshada reer Puntland oo runtii concern badan ama cabasho badan ka muujisay waxaa jirta baabuur aan cusbayn oo laga yaabo scrap in wadanka ku soo galay oo taargo lagu dhajinayo 45 ka bacdina waxa weeye ka qiimo badan iyo baabuur kale oo cusub oo taargadiisu tahay 20 ka bilaabato ama 30 ka bilaabato hay'adii baa kireysan waayay dhibaato badan baa dhacday xagga amniga laftigeeda runtii concern badan baa laga muujiyay arrintan waa arrin wasaaraddu ay ku tilaabsatay horumarna aan ka gaarnay haddii alla idmo waxay iskugu jirtaa xarfo iyo lambaris bay iskugu jirtaa halkii lambar oo mar taarga ah oo mar waxa weeye la qaatana mar labaad ma soo noqonayo baabuurka conditionkiisu de korba model baabuurka lagu gataa laakiin taarga lagu ma gadan doono haddii alla idmo